allaha u naxariistee waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday xalay qoraagii soomaaliyeed ee marxuum maxamed daahir afrax kaas oo maalmahan halkaasi ku xanuunsanaa. marxuumka oo ahaa aasaasihii ururka qalinleyda soomaaliyeed kaas oo ay ka dhalatay akademiyad goboleedka afka ee agac ayaa buugaagta uu qoray waxaa ka mid ahaa sheekadii caanbaxday ee maanafai. haddaba qof ceynkee ah ayuu ahaa qoraaga geeriyooday? waxaan su-aashaasi weydiiyey abwaan siciid saalax oo qoraaga muddo ku dhow nusqarni ay soo wada shaqeeyeen kaasoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. ina lilah wa inaa ilaahi raajicuun. marxuumka aada magaciisa soo qaatay maantuu geeriyooday maxamed daahir afrax ilaa bilowyadii 70-aadkii iyo markuu dugsiga sare ka soo baxay iyo markuu qoraal bilaabay aan idhaahdee waanu isniqinay. maxamed daahir afrax qofnimadiisu waxay ahayd maxamed daahir afrax wuxuu ahaa qof lagu yaqaan kasmo badan, maskax shaqaysa, wax soo saarta, fulisa, qof aad u xishood badan, hadal yar, qorid badan, wax u fiirsada, wuxuu u fiirsado saamaynteeda muujiya, qof aan iyar lagaga warrami karin ee dadka soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin oo ku wada barteen qoraaladiisa iyo hoggaamintiisa iyo inta urur oo uu sameeyey iyo inta uu wax qoray. qofkaa la wada og yahay oo sidaasa oo u dhashay asluubta iyo akhlaaqda iyo kasmada ayuu ahaa. waa gartay. maadaama qoraaga aada muddo dheer istaqaaneen, maxaa ka mid a waxyaabaha ay bulshada soomaaliyeed ku xusuusan doonaan? waa qofkii ugu horreeyey oo sheegta ummadda soomaaliyeed oo dhan saamaysay oo xidigta oktoobar lagu qori jiray, markii dambena buug laga dhigay, hadhadhowna buug laga dhigay oo la yidhaahdo maanafai. qof wali oo maxamed daahir afrax maqalaa magaca maanafai buu ku xusuustaa. maxamed daahir afrax qoraaga sheekada oo lagu xusuusto maaha waa saamaynta ay bulshada soomaaliyeed ku yeelatay. maxamed daahir afrax isla 70-aadka wuxuu bilaabay faaqidaadda riwaayadaha soomaaliyeed uu ka qoro oo ay dad badani dhibsadeen. xitaa wuxuu ahaa aniga faaqidaad uu wax ka qoro waxaa ugu horreysay masraxyadan anigu sameeyey oo la oran jiray dhaqdhaqaaq iyo dhalinyaro 1977. markaa ka dambaysana buug masraxeedka af soomaaliga ayuu qoray. markasii horreysayna maanafai waxa ugu xigtay sheekada kale oo galti macruuf la yidhaahdo. marxuumka intii dambe ee noloshiisa muxuu ku howlanaa? waxa uu maxamed inta dambe u go-ay badbaadinta iyo u dhiska ururo la yaab leh oo jira weli oo aada u taramay oo isdhalay oo geeska africa oo dhan ka hirgal oo ka shaqeeya oo ku wada foogan hal abuurka suugaanta iyo qoraalada. waa asaasihii guddoomiyaha ugu horreeyeyna u ahaa ururka somali speaking ben ee ururka qalinleyda iyo hal abuurka soomaaliyeed ee london uu ku asaasay xaruntiisa. markii dambena jabuuti uu u noqday, welina ay u tahay jabuuti. waxaanu wada asaasnay, waan la joogay ururka soomaaliga ee african unionka hoos yimaada ee la yidhaahdo somali crossborder commission oo ay afafka africa u sameeyeen. dadkii wada asaasay baanu ahayn oo uu guddoomiye ka-xigeenka noqday. wuxuu ururkii somali pen dhalay oo markii 40 guuradii farqoraalka abaabulkii weynaaye oo ururka somali pen jabuuti ku sameeyey ka dhalatay akademiya goboleedka af soomaaliga agac loo yaqaano oo aada u hirgashay ee dalalka af soomaaliga ku hadla oo dhan ee soomaaliyeed ka wada howlgasha. saaka marka aan geeridiisa maqalay, madal ay bishiiba madalo ay qabato, madashii oktoobar oo sabtida u horreeyay bil walba la qabto ayaanu ku jiray. maxamed daahir afrax hogaamiye
u go-ay inuu ummadda ku barbaariyo oo u badbaadiyo afka hooyo qoraalada inta qoraal oo kale oo uu leeyahay kuma wada xusi karo iyo inta uu gacanta ku hayay. toddobaadkan xanuunkiisu marka uu bilaabay baa iigu cod dambaysay oo aan UK kula hadlay akademiyada ka dhismaysa dhismaha layaab kale ee muqdisho hadda u noqon doona xarunta hoyga qoraalka iyo afka soomaaliga ayuu ku howlanaa siduu u dhammaynayo oo loogu shaqayn lahaa. kaasi waxa uu ahaa abwaan siciid saalax oo qadka telefoonka iigu warramayey isagoo ku sugan gobolkan minnesota ee dalkan maraykanka. dhegeystayaal allah u naxariistee marxuum maxamed daahir afrax ayaa ahaa aabe ifka kaga tegay 3 caruura oo kala ahaa